Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalay soo dhawaada kusoo dhawaada dhadhan xawaash. Gacmo furan, qalbi furan, cunto yaroo macaan. Walaalay inta nala joogta aada u mahadsantiin. Inta nagu cusubneh subscribe, like and share. Maanta maxaa noo diyaar ah? Qadadan macaanka badanaa noo diyaar ah. Maanta waxaan karinaynaa bariis. Maxaa la dhahaa car ikarme dhaha ikar la dhihi jira iyo malaay iyo waxyaalo kale oo yaryar ah saladkiisa maasha Allah complete lunch maanta aan karinaynaa qadab dhammaystiran. Inta waxaa noo yaala fiishka noocaaneyta ah talabiya dhahan af Soomaali wax lagu dhaho ma garanaay. Jiir waaye malaayganeyto kariskiisa horta waxaa waaye wuu ka jilicsan yahay marka la karinaayo wuu burburaa dhaqsuu burburaa isla markii malaayga dhan wuu burburaa laakiin kan zaa'id u siiyay marka maanta waxaan suubinaynaa waa shiilaynaa intaan spiceska oo dhadhanka ku darsanaynaa waa toon shiidan babriika liinta iyo isku jiro basal shiidan cusbo iyo kabsarta budo qolof qolofta ah intaas iyo dhadhan xawaash yar oo meel dheer ah maasha Allah intaas isku shiidanaynaa malaayga waa soo dhaqda waa soo nadiifsada waana soo qalajiye xaashi mise mara adi nadiif ku ah ku qalajinaysaa dhacaanka dhanaka biyo laqaa ka soo bixinaysaa maasha Allah saana ugu dardarsanaynaa si qalalan malaayga markaa shiilayso wuxuu ku fiican yahay especially kan hadda aan suubinayo ina waxyaalaha qalalan ku dhanaaniso oona ku carfiso carfiska qaleelka ah laftuu ka gelayaa korka ma ka fuqaaya laakiin markaa biyo ku suubiso oo wax oo yacni dhacaan leh aad ku suubisid wuxuu noqonayaa waqti u qaadanaa shiilmadiisa waxaa laga yaabaa inuu kaa jajabo laakiin qaleelka markaa saan ugu suubiso meel kasta gaarsiisid wax yar la dhigtid maasha Allah ku soo baxaa xaqiiji kaliya inuusan malaayga biyo badan lahayn malaayganeyta markii la shiilaayo mise markii la karinaayo qofkii ila arki ma ogi wuu burburaa isla markii burburub oo kala dhahaa wuu ka jilicsan yahay malaayada kale salmon fishka iyo red snapper al dhahaa ma aha camal maasha Allah iyo tuunada iyo sour fish ma dhahaa adi malaayahaasita kalmada maasha Allah malaaygeena saana usoo marsane hadda dhinaca u dhiganayna hadduu ala idmo si quruxsan oo fiicanna waan usoo marsane wuu qalalan yahay wax biyo oo dhacaan dareeraya iyo waxna ma laha maasha Allah tabaaraka raxmaan mulkiya meeshaan ii taagan oo leedahay waxaan inta aad u carfaya ursii waa ursanaya maasha Allah walaalay waa kan diyaaru noo yahay hadda si fiican isla eg aan soo mariyay maasha Allah hadda inta waxaa noo yaalo malaayga intuu noo sii dhanaankiisoo yar lafaha kasii galaayo gudaha ka galaayo inta waxaa noo yaala mooskaneyta waa moos bukeeni camal waaye laakiin anaga hadda meelahan aan joogno moos bukeeni camal u isticmaalnaa Soomaaliya markaa joogno waxay dhihi jireen Soomaalida dameer moos la-aad ileen maba aheena waa moos adduunyada dhanba qaali ka ah maasha Allah looda wax loo sii makasaay maasha Allah mooskaneytana waa shiilan doonaa hadduu alla idmo weligaa moos saas ma u fiiqda adi Allahu akbar wala maxaa moos soo fiiqay yaa maasha Allah mooskaneyta shiilanayna waxaan rabnaa bariis yar oo car ikari ah oo guduudan oo qudaar baryahaneyta qudaarta isbareena inaan qudaarta barano waa Soomaali haddaan nahay waxaa waaye qudaarta ma jeclin ma og wax nagu diray mise mana la soo barin miyaa ma og mana la soo barin maasha Allah laakiin qudaartu waa muhiim cunto kasta oo cunaysa inay qudaar ku jirto salad ha ahaato waxyaalaha kale ha ahaadaan baryahaneyta qudaarta isbareena inaan qudaarta badsano waa insha Allah naftaada waxay bartid leh waa nafta waxaa waaye sida loola dhaqmo mooska jarjaranaynaa hadda si waxaan u jarjaranaynaa ukun oval saas u jarjaranaynaa hadduu alla idmo mooskaneyto waxaa u malaysaa xididka dhexda oga jiro kisoo yar inuu adag yahay laakiin markii la dubo asaga dhan jileecuu noqonaa wax adag ma jiraayo marka hore waxaan dhihi jiray mooskan dhexdu ka adag yahay laakiin qolada isbaanishka dariska aan nahay waxay dhaheen no wuu karaaya haddaa fiiri waaba maasha Allah uu noqday inaba caadi ma aha mooskan haddaa mar baratid maalin kasta waa karsanaysaa aan ku dhahay dhowr nooc si kala duwan sidaa rabtaa u jarjaranaysaa
dheerdheer u jaro kuuskuus u jaro adiga le waa dubi mise birtaawada wax yar saliid intaa ku tufjisaa ku gedgedinaysaa. Gurigeena alaabtaneyta aad iyo aad haddaana musbakeeni markaas la karineynin waxaa waaye kan inaan karsano waa qasab waa ilmahayga aaday u jecel yihiin. Markaa keligiis raba inaa cunane waxna maku daraa laakiin hadda maanta kan maasha allah saas usoo jarjartay quruxda badan maasha allah markaa dubtana si quruxsan uu kusoo baxayaa. Inta walaaley waxa ii yaalo dhadhanaankii haddaay aan malaayga soo mariyay inta iiga hartay aan korka ka marinaa. Waxaan rabaa macaan yar iyo dhanaan yar marka afka la gashto iyo caraf yar maasha allah inuu isku soo baxo aad iyo aad isugu soo baxo. Marka saasaan u marinaa mararka qaarkooda ma u baahnid markaa adoo kale qaxwo kale ku cabeysi iyo ma u baahnid marna waa marin kartaa mase laakiin maanta ani waxaan jeclaystay inaan mariyo. Qaarkooda cusbo keliya aan ka mariyaa. Hadda dubowgiyaa bilaabeynaa horta kow malaaygaan dubeynaa. Malaayga markaan dubno kadib haddana mooskaan dubeynaa hadduu alle idmo. Malaayga saana ugu dhadhex ridee waxaa la rabaa saliidda inay kor ka soo marto. Hadhihina saliid waa badanta saliid lagu dubaa anaga horta I don't know ma garanayo. Waxaa waaye malaay haddii la dubaayo saliidda inay ka kor marto waaye. Haye malaay waa la dubaa adduunyada meelaan laga dubin fried fish waana mana walwalaaqaysid sheeb aa ka leedahay markuu karo asaa kor u soo baxaayo kor u soo baxaa wax kor u soo baxaayo. Hadda hoos uu jiraa kor u soo bax waa sidii hore ma aha. Marka ka dambeyso kor u soo baxaaya marka inaa sugtid waa inaa walwalaaqdid ma aha. Marba haddii saliidda ka koraysid inaa gidgidisid ma aha. Labada dhinac isku si uga guduudanaya. Maxaa yeelay saliidda dhanaa ka korayso. Walaaley soo dhawaada ku soo dhawaada dhadhan xawaash. Haddii aa maanta nagu soo biirto oo videogan kugu horeeyo waxaan kaa codsanaynaa inaa subscribe-ka iyo like iyo share-ka walaalaha la wadaagtid. Waa kaaseytaa hadduu markuu karo sasaa ku kasay asaa banaanka kor u soo baxaaya. Wuxuu ku leeyahay walaaley diyaar aan ahay iga qaad walaalo quruxda bal fiiri ma jajabin sina ma noqonin maasha allah quruxdaas ku soo baxaa. Malaay haddaa rabtid inaa shiilatid saas yeel biyaha dhanka tirtir wax qalalanne oo carfaaye iyo dhanaankii wax qalalan mari maasha allah. Birtane kuleel zaaidee ku ahaanin qabowneyo ku ahaanin adi dhadhaxaad qof kastuu kasaa qiyaasta maasha allah. Saas inuu shagagaga xudhaa laakiin birta haday kaa qabowdahay oo saliidda kaa qabowda aa ku dhex ridid wax dhan wuxuu isku noqonaa mashkax markaasay burburayaa maasha allah. aad uu saas ugu soo koraya malaayga waxaa ku ogaanay inuu kore asag keligiisaa kor u soo baxaayo walwalaaq badan ma u baahna iyo gidgidis. wuuna is aruursana hal meel isugu imaanaya sida bunkii oo kale waa. Bunka markii la dubaa inuu karo waxaa ku kasay saas u kala taagan midba mar u taagan kulli hal meel isugu imaanaa. Macnaheedu waxaa waaye bunka waa karsan yahay. Mararka qaarkooda inaa walaaqdo u baahantid walaaqid oo weyn ma aha wax yar kastoo aa fiirisid camal say xaaladda maraysaa markaa ka shakisid camal ma aragti. Ma soo karin mise ma soo karin. yaa maasha allah waa kaaseytaa kor u soo baxaa isaga dhan inaba caadi ma aha. Waxaan karsanaynaa bariis qalim shilam oo maanta qudaarta haddaan nahay bahda Soomaalida qudaara isbaraynaa waxaa arkaysaa dad cunto u geynaysaa saladkaa geysay fruitskaa geysay kulliyaa wada geysay just waxaa la cunaa bariiskii mise baasadii hilibkii waxaa sita fruitkii iyo saladkii sidooda ku yahay mala taabanayo. Marka waa la isgaladsiinaa in la isgaladsiiyo waa muhiim. Qudaarta maxaa yeelay fiber ku jiro calooshay jilicsaa waxaa cuntid hadda kula cuntid maasha allah. Shaaha ranjiga digestive-ka oo caloosha uu qayb ka qaataa. Saladka oo kale anaga cuntada kula cunaa laakiin marka cuntada la cuno kadib haddii la cuno
waxaad dareemaysaa inaadan waxna cunin. Haddana mooskii aan shiilanaynaa, kulli waa ku wada gedinaynaa walaalahay. Aad dubto kadib ha isdhihin saliidaa ka buuxsamaayo, saliid ma ka buuxsamaayo. meel waxaa saaranaysaa oo xaashi korkeeda, saliidda dhan way ka dhowqaysaa, wax yaroo nadiif oo maasha allah. alaabtaanayta saan loo dube ma u baahnid. haddaa rabtid ma duban insha allah asagoonan la dubaynin, saliid lagu dubaynin oo wax yar saliid leh birtaawada inta saas loo mariyo. iska jir mugo saasa ugu tutuurin, ma og waxa ugu tuura saasay bash saliidda soo dhahda subxaan allah. birta lay ku gedisanaysaa, yacni wax yar saliid qaada camal intaa ku shubta labada dhinac ka gaduudanaysaa. mooska diyaarab waa qurux keliya kuu noqonaa. moos bukeeniga xataa oo saacado karaayo waa oga maarantaa alaabtaan ramadaankii oo kale. moos bukeeniga hadduu ku bisiliya dhegdheg waa jarjaranaysaa, waa dubani. qurux wuuna macaan yahay naturalka, asaga macaankiisa asaga la iskarinaa, wax sokor iyo lagu daraa male. maasha allah aada u macaan yahay mooskaaneed qofkii barto. asagana sidii malaaygi oo kale waaye, markuu karo waxaa ku kasaysaa, laakiin muhiim maxaa ah inaad kor taagnaatid because macaan waaye. waxyaalaha macaanka dhaqso way gubtaan, isla markay gubanayaan. marka inaad kor taagnaatid oo ka warqabtid waaye, oo kastoo yar sas u gedgedisidoo meesha hoos jirto kor soo marisid waa muhiim. wuu gubanaa, dhaqso uu gubtaa mooskan, isla markii uu gubanayaa. hadduu soo gaduuto isla markiiba uu soo gaduuto qurux uu soo noqona. walaalahay soo dhawaada, waa isla karineynaa, waa isla cuneynaa, waa isla maasha allah. dhadhan xawaash waa hoygii kariska, hoygii cunto yaroo fudud oo macaan, simbol aanan adkeen, oo si fudud loo suubinaa. aad iyo aadaan ugu faraxsanahay. gabdho badan 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 maasha allah, ilaa kheyr ha siiyo. annaga dhan ilaa kheyr halana siiyo, inay feedback badan soo bixiyaan. waxaan ku dhahay aadaan ugu farxaa gabar walaashay ah inaan kala faa'iidaysano, iidana aan wax ka faa'iidaysta, anigana ay iga faa'iidaystaan. maasha allah markay i tusiyaan saxanka dhag luuqa soo dhigaan ay soo kariyaan, maasha allah aadaan ugu farxaa. aadaan u mahadsantiin walaalahay, soo dhawaada. inta nagu cusub waxaan idinka codsanaynaa marka videogan fiirsato howshaanayta khatarta ee la qabtay inaadan ka tegin hadde, oo aad subscribe-ka dhac ku siisid, laaga dhag ku siisid, notification-ka daaratid, comment kasoo bixisid oo dhiirigelin ah. maasha allah waa kaa mooska saano noogu soo guduutay. waa la yuumbinaa, yuumbis ma maqli jirteen yaa. maasha allah diyaar gaduudoo noo noqdo qurux badan. waan bixinaynaa hadda cayaar mood saas u soo gaduud ka waranaya. kamaanyeehe walaashee quruxdan uu soo noqda. mooskaa ma u baahan tahay inaa moos bakeeni waqti badan sugtid, waa ka maarantaa haddaad reero caajis tahay yaa. mooska waaba iga daatay, see ahaan waaye. meeshas nadiif waay, clean, very clean waay meeshas maasha allah. walaalahay soo dhawaada. haddana maxaa suubinaynaa geedka bariiska ahaayo qalim shilimka igu kor shuble yaa. isku dardar leh, waa isku dardar bariiskaaneyto. waxaan ku shubanaynaa wax yar saliid, maka badanayna saliidda. maasha allah bariis waxaa la dhihi jiray car i kariyaa la dhahaa, caraftiisaan jecle, marmaru i qabtaa geedkaas. bariiskan ma aragta marmaro ay qabanaya dhab. waxaan leeyahay caraftiis soomaaliya aan soo xasuusanaa, waayii la karsan jiray alla macaanaya. hadda bismiti raisaab la iska bartay, dadka bariiska caddaa caadiga iyo cari karigi iyo waa la diida. waxaa la dhahay ma rabno bismiti rice bas. inta waxaa iigu jira walaalahay xabad yaroo basal ah iyo 3 xabo toon ah aan isku soo jarjaray. maasha allah tabaarak allah. alaabtaasita waxaa la rabaa in la isku sanuuniyo, carafta inay horta carafta dadka wareeriso. markaas waxaan ku dhahay wixii lagu darsan lahaa lagu darsanaa insha allah.
walaalahay markasta aad basasha rabtid inaad gaduudisid shiishid oo sanuunadeeda bannaanka usoo baxdo yaryariisaa ka dhiganaysaa waana dabooleysaa si fiican ugu karto. Haddaadan daboolin waxaa waaye carafta dhanna way ka baxaysaa bannaankay aadi digsigay dhaafaysaa waana waxaa waaye dhaqsana makuu karayso. Markaad dabooshid si quruxsan ay u karaysaa oo macaan badan oo inaba aan caadi ahayn. Maasha Allah hadda waa kan walaaqow le waay. Maasha Allah basasha aad ay u soo caraftay aad ay u carfoon tahay maasha Allah. Waa ku celinaynaa waxaan u maleeyaa inay wax yar dhiman tahay yaa geesaha ay kasoo guduudataa isku waa walaaqay maasha Allah. Waa kaneed basasha hadda duleelkaas yarka qiiq kasoo baxaya caraftiisa waa yaabaysaa maasha Allah. Toon iyo basal saliid ku shiil waaw quruxdaanay kusoo baxday. Haddana waxaan ku darsanayaa qaado yar qaado camal oo sinjibiisha shiidan. Waxaa la rabaa hadda carafta inay si fiican arka gasho siigada arka qabato. Waxyar haddana basasha iyo sinjibiisha iyo toonta la isku karina waa muhiim in la kariyo wax kasta. Haddii cuntadaada macaan ee rabta aad kusoo baxdid si fiican u sanuunee. Haddii baq iyo biyo inay kugu soo baxdo aad rabtidne wax kasta ursii le sii maasha Allah. Saasay u soo guduudatay quruxdaasay noqotay meel kasto. Waxaan ku dhahay basashaanayto ma muuqanayso aan ku dhahay isha ma soo taagayso ma ku soo fiirinayso. Haddana bariiskeena waa inta diyaarnay aan soo dhaqay waan soo dhaqay wax yarna waan soo radiyay bariiskaanayto oo radsan yahay. Adiga 30 daqiiqaan soo radiyay bariiska car i kari maa la dhihi jiray cali uraayo madba qof bas u yaqaano waaye bariiskan bariiska gaduudan oo kuuskuuska ah waaye. Maasha Allah aad u soo nadiifiyay inaba aan caadi ahayn. Waxaa waaye asaga la isku karinayo ku dhahay saan ma jeedin la isku karinayo in yaanyada lagu daraa biyo yar salka ugu jira iyo wixii dhan maasha Allah si fiicanaana loo soo dhaqay. Make sure gabdhayahow xaqiijiye iyo wiilal iyo gabdho qof kasta qofku yahay bariisyada waa in la dhaqaa. Haddaadan rabin bariiska jawaan inuu kasoo urin si fiican ilaa biyo nadiif ah ee kasoo baxaan maba kasoo baxayan horta biyo nadiif markasta laab cadaan wuu noqonayaa. Inta waxaa iigu jiro koobkaaseyto oo yaanyo hore intaan u kariyay aan soo shiitay maasha Allah. Waxaan ku dhahay alaabtaanayto waa la isku huurinaa macaanka dadka cuni jiraa kasaaye dad badan oo meeshaan fiirsan doona maasha Allah bariiskan inaba caadi ma aha. Badanaa yaanyo kaliya ku karin jiray laakiin maanta qudaaraan ula tagayaan ku dhahay qudaar waa qudaarta in la isbaraa. Quraar badowa isbarowa ka jirta meesha maasha Allah. Bariis yar oo gaduudan oo inaba aan caadi ahayn oo kasoo baxaya qurux badan maasha Allah tabaaraka raxmaan. Dhadhan xawaashaan ku darsanaa labadoo qaado hadda hal qaadi bara camal
saddexdaas qaadadaas yaryarka waxay u qalantaa adiga labadeeda waxay u qalantaa hal qaado iyo bar camal maasha allah. Si fiican aan u walaaqay. Dhadhan xawaash inaba caadi ma aha. Inaba caadi ma aha. Aad u macaan yahay, aad u caraf badan yahay, aad u raashinka maasha allah uga dhigaa. Raashinka lagu daro waxaan ku dhahay raashin gaari karis waa gaari maasha allah. Biyo kale laguma darin waa la soo radiyay bariiskaaneeto kisiro biyihiisa marka ku soo dhaq wax yar dhexda uga jiro iyo koobkii yaanyo aan ku daray bas waaye. Haddaa rabtid inuu kuu sii jilco markasta aa u malaysid inuu ka adag yahay adi baroobay dhadhami qiyaasta adaa ka siisa laakiin ana maanta intaana igu filan insha allah. Inta waxaa ku dar laba qaado yaryar oo cusbo ahaan ku soo daray. Walaaqowle lagu haayo meeshaan. Waa la walaaqaa maasha allah weli qudaartii oo dhiman. Waxa karinaya waxaa waaye qudaartii iyo biyaha ka soo baxay iyo waxa dhan isagaa iskarinaya laakiin badankiisa markuu soo badbado huurin waaye. Waa la huurinaa dabka loo gaabinaa asal la isku celcelinaa mal rabo waxa uu soor isku noqdo. Bariis meel kasta taagan qudaartiisa adduunkiisa hadda waxaa ku darsanaynaa digirta cagaaran. Waxaan ku dhahay waa la cunsiina waa la cunsiina ilmahaas uga helan waa yaabaysaa jilicsan oo qoyan intan waxaa igu jira 4 barbarooni kala nooc ah maasha allah. Haddaa awood qudaarta inta awoodida ku darsanay qasam ma waxaan dhan inaa ku darsatay kale kaligiis yaanyadiisa lay ku cuni kartaa hilibkii wixii aa ku karsan ku cunayso gooni maasha allah. Quruxda meeshaan qudaartan ma ku diideysaa inaa cuntid maya waxaa ku leedahay cun aada u macaanahay korkaaga u roonahay yaa waa kaas maasha allah. Quruxdaaba kaaga daran meeqa kalaraa meesha ku jirto waa ka bariiska saana u soo badbadaaya tartiib slow cooking aa loo suubinaaya maasha allah. haddana kabsartaa ku darsaneynaa waxaan ku dhahay cari isbaanishaan tagnaa u malaynaa cari meksikaankaa tagnaa u malaynaa maasha allah. maalinba meelaa la taagan yahay yaa maasha allah. bariiskan wixiisa dhan waa u dhamaysan yahay waa la daboolaa tartiibtiisu soo karaa si fiican wareer dhan ma jiro maasha allah. asala iskarinaayo qudaartii lagu daray biyihii yaraa waa la soo radiyay asaga maasha allah aan ku dhahay shabiska dheh waaye inaba caadi ma aha tartiibtiisu soo karaya. walaalihii haddana inta waxaa noogu diyaar ah qudaartan ku cuni lahayn saladkii aan inta ku diyaarsanaynaa. inta waxaa noo yaala xabad cambe ah 2 xabo yaanyo ah gabal yariis basal cad ah xabad yariis basal gaduud ah avocado qashaarkii iyo spinach baby spinach ee dhahaan spinachka oo spinachka ahaa caadiga waa kaas anoo yaalo. waxaa waaye qudaarta la isbaraa waxaa waaye caruurtana qudaarta la baraa marka ilmaha si wax ugu soo bisa dhadhanaanayso si oga dhigtid yar iyo weynbo naftu iska jeclaanaysaa. baaquligaasna baaquliga markaa jarjarano ku shuban lahayn waa hadda kulli waa isku yaryareyneynaa. saladka la yaryareeyo wuu ka macaan yahay kan waaweyn wuu kusoo fur laakiin markii la yaryareeyo oo liintiisa iyo wixiisa dhan aa ku darsatid waxaan ku dhahay qof diidaa mal qofkas wuxuu leeyahay si uu ku leeyahay maasha allah. waxaa idinku boorinayaa ansalaatada markaa jarjaranaysiin saladka inaa kulli isku yaryariis iska dhigtiin qurux waa laakiin salad waaweyn oo midba caleemo waaweyn ah ma fiicno. kulli ana ila ma cuni lahayn caleemo waaweyn iyo caleen yaryar hadda agtaal ku yaryariiska loo jarjaraa qaadanaya maasha allah. basashana waa aad u fiican tahay caafimaadka dhiigga nadiifisaa. idinka ani hadda rotation qudaarta ma galaa laakiin yaanyadana aad u fiican tahay. yaanyada ma aragtay dalac bilaashka subaxdii dadka oo kastoo caloosha dhibto
dalac bilaashka aadan si fiican u karino wax yar yaanyo dabka le aad taabsiiso aa ku quraacatid calooshaasayt habeen hadday gaarto waxaa waaye barbaleen kale qabtaa yaa maasha allah saasaa loo yaryareynaa kulli waa la isku yaryareynaa walaalahay sararka waxaan ka tegayna male gacmahan waa lasoo dhaqa waa lasoo nadiifiyey marka hawsha lagu qabanayo you know gloves waxaa waaye mararka qaarkooda waa degdegsantahay waxaa rabtaa wax inaad samaysid baa gacmahaaga dhaqo si fiican u dhaq hawshaada dhagdhag ka suubso laakiin yaanyadii gabalkan waan raabinayna xabadii gabal inaaf waa wanaga badan tahay maasha allah qashaarkoo kale saas waan reebanaynaa gabalaan ka reebanaynaa qashaarka waan fiiqaa laakiin fiiqidaas aan fiiqa ma tuuraa may ma tuuraay waxa sababta u fiiqo just qurxin leh indhaha inay soo jiidato oo sooba laakiin qoloftaasayto waan jarjaraa saladkaa ku dhex darayaa wax la tuuraayo ma leh nafaqada dhanba waa intaas yaa wax la tuuraayo way yartahay kana waxaan geesaha uga jara jas inuu quruxsanaado oo meel cagaar ah meel caddaan ah maasha allah gacmaha la iska jiro mararka qaarkooda mindiyaha taf ay ku siinayaan ujeedaa markaa cabad dhinac cagaar ka tahay dhinacna caddaan ka tahay indhahay soo jiidanaysaa marka sababtaan uga jara waxaa waaye inay indhaha soo jiidato maasha allah tabaaraka raxmaan ilaah waxaan ka baryay inta haysata ilaahay inuu u barakeeyo caafimaad ku siiyo intaan haysanina soomaali meel kasta ay joogaan ibni aadan uu siiyo caafimaadna uu ku siiyo maasha allah waa kan spinachka asagana waa la yaryareynaa dhagdhag waxa dhan waxaan ku dhahay mooskeenina meeshaasuu diyaar noo yaho la qurxiye quruxdiisa bal fiiriya walaalayaalow yaa ma la isku ciyaaraa may ma la isku ciyaaraa haddana afkaadhadii aa jaranaynaa maasha allah inaba caadi ma afkaadhada waa aaday u fiican tahay iyadana haddaa shiidatid keligeeda cunto waxyaalaha caloosha jilciya ku jirtaa aad iyo aad ha laga warjiriyo maasha allah gabalaan ugu filan gabalkaasaan dhagdhag ka siisanaynaa maasha allah waxaan ku dhahay inaba caadi ma walaalay soo dhawaada inta nala joogtana waa mahadsantihiin inta nagu cusubna soo dhawaada idin leeyahay gacmo furan cambihii gabalkaas yarkaa ku darsanaynaa halkaas jeex waxaa waaye dhanaan yara u yeelaysaa raashinka maasha allah caraf yarna u yeelaysaa waxaa la rabaa in ino anaga cambaha iyo strawberryga iyo saladka in lagu daro waa muhiim dhanaan yaroo taste macaana u yeelaan macaankaas iyo dhanaanka isku jirjiro maaragta iyo liinta iyo cusbada iyo wax dhan marka laysku daro waxaan ku dhahay ha iga tegin ay ku leeyihiin ha iga tegin maanta dhan maasha allah
maasha allah. Saasaa shuq 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 u siinaysaa. Is- alaab aruuriyo waa la gala inta ka qaad ya. Maasha allah tabaarak raxmaan. Qudaarta quruxdeeda waxaan ku darsanaa wax yar cusbe ah, qaada fiideeda oo cusbe ah. Waxaan ku miiranaynaa liinti gabal liin ah. Maasha allah miraha ka reeb, mir ma walaga reebi karay si fiican ugu miir. Waxaa la rabaa dhanaan fiican oo kaala arag liintii cusbada isku darsantay. Yaa maasha allah. Gacanta saas dhag dhag ku sii. Waxaan ku dhahay gacantaada ula tagaan ku dhahay gacantaada nadiif hadday ku tahay hawshaada oo ku qabsan kartaa. Inaba caadi ma aha. Si fiican quruxda bal fiir jaalle, purple, green, red, blue ba blue ma ku jiro meesha. Laakiin maasha allah quruxdaasayda bal fiiri inaba caadi ma aha. Qaadadaana lagu dhex ridaa diyaar waan ku dhahay diyaar. Hawshaada iskuma taal taal way kala taalaa si fiican ya. Mid kasta meeshiis quruxda fiiraadi. Waaw. Kaasna xagaan dhigana. Qaadadeena diyaar bariiskeena maasha allah waa kaneed saan u soo huure. Geesuhu wuxuu ka siin haay jag 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 jag. Hal mar leh hadda qaadada la marinayaa. Waxaan ku dhahay miikooga qarsin madbasa u taqaano. Si fiican carafta ka soo baxayso. Waa yaabaysa. Yaa toontii adduunka marka isku darsamay iyo bariiskii car i karidi caraftiisii iyo waxaan ku dhahay qudaartii barbaroonigii wixii lagu daray. Bas waa diyaar waa markaanayto wax yar leh. Waa la daboolaa kastoo yar ha soo qabow ha soo huuro. Waxaan ku dhahay shib iska dheh waa qudaarta hala badsado. Qudaar cuno bilaabeynaa. Yaa maasha allah maasha allah. Aad u soo kare si fiican u karsan yahay. Bariiska iskuma yaalo dhacan dhacaan uu leeyahay. Ceeri qale adeeg ma aha. Waxaan ku dhahay gooyska markaas aan ugu qabto saan ugu tirmaa. Alaabtaan waa ka diyaar noo soo noqday bariiskeenu soo huuray oo qurux badan. Haddaan guranaynaa hagaajinaynaa walaalahey. Waa mahadsantihiin fiirsashada fiirsateen. La joogaa nala joogtiin inta maanta nagu cusubna maasha allah soo dhawaada. Aad iyo aad alaabtaanayta ma aragti. Inaba caadi ma aha. Qudaarta markaan ugu darin ee keligiisa yahay oo yaanyada keli lagu kariyo. Gabdhaha walaca aad u jecel yihiin. Maasha allah. Waa laga sheekeynaa ku dhahay gabar walac hadda u karisa guduudkaanayt saan ah. Maasha allah. Inta ulaad haysatay ilaahay ha u barakeeyo. Intaan haysanin ilaaha siiyo. Inta ay u joogaan barake iyo mustaqiim ilaahay ha geliyo. Anaka bariis ay jecelna meesha 5 qof cuni lahayd ma aragti. Hal qof aa cunaa. Halka qof halkaas qaadaa loogu talagalay. Laakiin aniga waan ku wadaa le. Waa ku wada. Maasha allah. Walaalahey waa mahadsantihiin bariiska saan quruxda badan noogu soo baxay bal iska fiiri. Wax fool bilaa mooskaaga guduudan. Liintaadii malaaygaagii qudaartaadii intaan hadda isla hesho. Ikis yaro bisbaas haddaa helaysid haddii kalena ma u baahnid bisbaas koobkaaga biyaha ah. Waxaan ku dhahay dhinaca u seexanaysaa walaalahey aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada mininkiina waa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Quruxda fiiraadi. Inaba caadi ma aha. Maasha allah tabaarak raxmaan.